بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وهبين كلا يهبين ندي بركيسنا بش رمضان تاسيو إنه سجون نمي إن نكوف لانقينو بو كميدة بوقت فكر كإسلامية أو ينصو دياريو بش رمضان فضيلة الشيخ عبد الرحمن بشير شيخنا مفكر كا buugga aynu caawa insha allahu tacaala ku gorfayn doono golahan wuxuu noqon doonaa buug ka mida bugaagta isbedelka oo uu leeyahay Jawdad Saciid, mufakirkii islaamiga ahaa ee Suuriyaanka ahaa. Isbedelkuna waa sunno ka mida sunnada nolosha. Nin gabayaaba wuxuu yidhi haddaan guga ku kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaya arag ileen waxmad baantid geed. Isbedelku markaa wuxuu yahay mid lagama maarmaan waa wax walba oo nool. Marka buuggaas ayaynu si fiican u niqaashi doonaa caawa, waxaana si fiican noola qaadaa dhigi doona fadiilada Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir xafidahullah. Inta aynaan gudagelin sidii caadada ahayd, buuggu wuxuu noqon doonaa inuu inoo soo ururiyo walaalkiin Cabdullaahi, kadibna dadweynaha sheekha inoo qaadaa dhigi doona buugga, kadibna dadweynaha ayay su'aalaha ku furi doonaa. Ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa Cabdullaahi si uu isaga buugga inoo soo akhriyay, si uu inoo uga sheekeeyo buugga waxyaaba uu ka hadlaya afkaarta si kooban. soo dhaw Cabdullaahi. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة بوجا الشيخ عبد الرحمن بشير يا سفي عن وسيكي كلن كي كوري قراءة وحلوم قعوة جودة السعيد. جودة السعيد ومفكر إسلامي أقوياً وحنا أقول لي جري إن سيان ربشت كجرين اسبدل الله سميه. waxaan lagu tilmaami jiray gaandiga carabta. kitaabka ciwaankiisa waxaa la yiraahdaa hatta yughayyiru ma bi anfusihim. waxa uu ka soo qaatay aayadda quraanka ah qaybteeda dambe, inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ilaahay qowm ma bedelo xaalad ay ku sugan yihiin إلا أيوه نفتو إسكاب دلال معانا. آيادو سيدا كهاد ليسو يقراغ وسوزة المامي. آيادو حي كهاد ليسا قوم كما هاد ليسو فردي كما هاد ليسو. لكن طبعا قوم وحو كوكوبين هاي أفراد اسكو تقطي قويسس إيو bulsho si qowmku isku bedelo in bulshadu isbedeshaan, afraad waa in isbedeshaan. caawa tarawixdii imaamku wuxuu nagu dejinayay wakulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda. maalinta yowm alaakhiro dadka waxaa anfaca fardiga, laakiin adduunka waxaa wax ka qabta waa qowmka. marka qaayadu waxay tahay inuu qowmku bedelmo, ما هن هل الشخص كليا إنه يسبدله قومك ما بدله. سيدا كلا قرآن وحوت المامي سيدا آيات كو قرآن إن يسبدل كوكي ماذو كده يسبدل كاس وحنقو كرا لبقى يبود إن حالة حن قفكو يسكبدله أما قومكو يسكبدله وحالد وناكسن اسكو بدلو، أما حالد وناكسن اسكو بدلو وحالد حن اسكو بدلو. اسبدل كاس قراغو وحو شيغي لبا قيبود. قيبتا كوباد دادكو waa inay isbedelaan oo mas'uuliyadda qaataan. qaybta labaadna ilaahay ayaa fududeeyo isbedelka. waxaana horeeya uu leeyahay qoraagu dadku inuu nafsadooda isbedelaan marka hore.
si isbeddel u dhaco waxaa jirta sunnooyin ilaahay subxaana wa tacaala kownka u dejiyey sunnooyinkaas qowmkii raaca ayaa isbeddela sunnooyinkaas qoraagu wuxuu tilmaamay in ay laba u kala baxaan qaybta koowaad bini aadanka physical ahaan jir ahaan waxaa jirta xanuunyo ku dhaca xanuunkaas waxaa jirta sunnooyin la raaco adduunka maanta ilaa xad waxaa la gaaray in cudurro fara badan la daaweeyo midda kale waxaa jirta cudurro si guud mujtamaca ugu dhaco cudurradaas waxaa ka mid ah kala daadsanaanta tafaraaruqa dhibaatooyinka sida qabyaaladu ay ka mid tahay soo geli kara cudurradaas uu kitaabka ku dheeraaday shiikhu sida cudurrada fisikaalka ku dhaca jirka ayaa kuwaana haddii sunnadii la raaco ayagana loo bedeli karaa qoraagu wuxuu tilmaamay sidoo kale bini aadamku marka sunnooyinka la joogo waxay u kala baxaan labo dad sunnooyinkii raacay fahmay ku dhaqmay noloshooda xal ku gaaray iyo dad sunnooyinka aanan garanayn ama aaminsan in sunnooyinkaas aysan mushkiladda haysta aysan xali karin qoraagu wuxuu ku tilmaamay dadkaas waxay sugayaan inuu mahdiga soo baxo ugu dambayn waxaan rabaa inaan kusoo gebangabeeyo qoraagu wuxuu tilmaamay si sunnooyinkaas u keenaan isbeddel waxaa jirta 3 tilaabo oo loo baahan in la raaco kow waa in sunnooyinka la bartaa oo la baaraa oo la raadiyaa oo la fahmaa 2 waa in mushkiladda la rabo in la xalliyo ama waxa la rabo in la iska beddelo waa in la fahmaa maxaa yeelay cudurka inaad ogaato waa qayb ka mid a xalka midda ugu dambaysa dadka ka shaqaynaya isbeddelka waa in la yaqaanaa waa in ay xirfaddii ay sunnooyinkan ku dabaqi lahayn waa inay yaqaanaan intaasaan kusoo gabagabaynayo asalaamu calaykum waraxmatullah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad ayuu mahadsan yahay cabdullaahi oo inoo soo koobay ujeeddadii iyo wixii uu ka soo akhriyay ama fahankiisii gaarka ahaa ee kitaabka ku saabsanaa waxaynu si qoto dheer ama xeelad dheer u geli doonaa hadda kitaabkii iyo wuxuu ka hadlayay bal intaana sheekha ku wareejin su-aal yaroo kooban aan ugu bilaabo sheekh muxuu yahay isbeddel جزاك الله خير. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله بعد وكفر حسن هاي إن مر لبعض سووا إيمان نوفر دجان مر صدحات بانو جدا رمضان كده حديثة إن شاء الله ما أنت واحد نقول سوق غيب قلي عبد الله وسوق أخري أيام تضمنوا حافلين هيني أستاذ مهدي وارتي قاعد واحد ذي قالوا بارك inay nagala soo qayb galaan asaatida kale oo hadda joogto maartay macallimiinta ah iyo odayaasha dhalinyarada rag professora fadhiyo oo aqoon-yahana ina marka al-ilmu bayna al-talaba ilmu arday u dhax socdaay oo arday banaay ina kala faa'iideysano insha Allah okay akhi sheekh Saciid ma santa horta isbedel maxaa la yiraahdaa isbedelku wuxuu leeyahay mafhuum waxa weeyaan xaalad in laga baxo oo xaalad kale loo guuro isbedelku waa in la guuro weeyaan marka wuxuuna u kala baxaa laba nooc wuxuu kala baxaa mid dabiici oo nature oo noloshu ay keento in la isbedelo
iminka matalan inaad dhalinyaro tahay oo nin weyn noqotay oo duqowday waa isbedel baa dhacay laakiin waa naashir weeyaan inaad deganayd miyi oo magaalo tagtay waxaa laga yaabaa inay keento wax dabiici iyo gariiri iyo abaar iyo dhibaata inay keento waa taqyiir iska dabiiciya naajir weeyaan taqyiirkaas kale waa taqyiirka xaqiiqiga ah wax weeye waa mid ku xidhan qaraar adiga qaraarka qaadanaya waxaad leedahay waa inaan isbedelo weeyaan taqyiirka dhinaca waa loo qaybiyaa dhinaca kale waa loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa negative iyo positive mid wanaagsan oo dhinaca fiican qofku ka tadawurayo oo ka taqyiirayo iyo mid dhinaca xun qofku u taqyiirbayo iyadoo waa loo suuratul anfaal baa sheegtay kan wanaaga inta laga soo guuro xumaanta la imanaya dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowm xataa yuqayiruu ma bianfusihim tasalbiga inta laga baxo xumaanta laga baxo wanaag loo baxana in allaha laa yugayiru ma biqowm xataa yuqayiru suurat racd eeg dadka qur-aanka uma fiirsadaan suurat racd waa maki suurat lanfaalna waa madani suurat lanfaal markay madiine fadhida saxaabadu waxaa laga leeyahay wanaagan aada hesheen ininkaa iska siibi karaa oo waxaad ku noqonaysiin waxaad ahaydeen ila way kasoo guureen madiinay fadhiyaan oo dowlad bay dhiseen rag bay noqdeen oo adduunkii bay maamulaan oo nabi maxamed baa xukuma sal slam fawday ka baxeen oo nidaam bay yeesheen oo hab tanna waxa weeyaan xaaladan aad ku sugan tihiin kama bixi kartaan ilaa aad idinku isbedeshaan oo waa xaaladii maka ee fawdo ahayd intaa waxaan kugu dari lahaa taqyiirku wuxuu leeyahay iskoollo dugsiyo madaahib fi taqyiir baa jirta saddex iskuul baa ugu waaweyn iskuulkooda waxaa dhahdaa iskuulka markisyada carle markis ninkii oranaya wuxuu dhahdaa haddaan rabno inaan isbedel samayno waa inaan bedilno wax soo saarka intaajka productionka hadduu isbedelo dadku ba isbedelayaan marka taasi maxay ka dhaqaaqeen suuqa bedel haddaad suuqa bedeshid dadku way isbedelayaan marka carle markis tafsiirkiisu wuxuu ahaa iqtisaadi dhaqaalu ahaa tafsiirka labaad waa tafsiirka caqliga ah oo ay qabaan mufakiriin kaloo reer galbeed ah max fiber ay ka mid yihiin waxay leeyihiin dadka ka bedel ahdaafta objectiveyada ka bedel dadku ujeedooyinka hadday bedelaan way isbedelayaan laakiin dadku hadday ujeedadooda ay bedelin ma bedelmayaan taqyiirka qolada saddexaadi waa ruuxaaniyiinta waa wadaadada waxay leeyihiin dadka waa in laga bedelo iimaanka hadduu iimaanku isbedelo maxaa isbedelaya qofku baa isbedelaya saddex madrasado saddexdaa islaamku midna maaha islaamka diisa waa mid afaraad islaamka diisa waa maxay waxa uu islaamku uu leeyahay qofku hadduu iska bedelo gudaha isbedel baa ku imanaya tagyiiru afkaar habkuu u fikirayo iyo siduu u nool yahay iyo waxa ka dhaadhacsan in la bedelo wayaan markaabuu isbedelaya qofku annaka maalan example misaal buu soo qaataa wadaadkani wadaadkan gabadh walaashiya wadaadada muhiim ba u tahay gabadh walaashiya xijaabnayd ina saciid ah jooda saciid baa waxay la deganeen suuriya way soo dhooftoo maraykan bay imatay markii hal sano fadhido xijaabkii iska dhigtay way isqaawisay aduu dharkii caadiga xidhatay dadka maraykanka xidhnaayeen walaalkeed bay waraaqad u qortay waxay ku tiri saciidow haddaad maanta i aragtid waad yaabi xijaabkii adigu soo tarbeedaysay ma sito sheekhi wuxuu ahaa inuu naxo u afariiro kitaab buu ka qoray wuxuu qoray kitaab buu bixiyey mushkilatu libaas fi lmuslimiin darku problemka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah marka isagu muxuu yidhi in xijaab la xidho waa in horta la aamino fikradda xijaabka xijaabku waa fikrad waa caqiido lagu qancaa ee mara maaha marka waxaa bedeshay buu mare eh haddaad xijaabka ku qanacsanayd maba aad bedesheen adduunka meeshaa dooni tag ittaqi illaha maxay xadiisku xaysuma kunta adduunka meeshaa dooni joog soo bedelaysa marka taqiiqku waa saas yalla jazaak allah khayr waa hagaag sheekh waxa muhiima bulshadu waxay ka kooban tahay ashkhaas ama afraad xidhiidhka ka dhexeeya isbedelka afraad iyo isbedelka bulshadu maxay yihiin dhulkana uu ka hadlay waxaa jira waxa la yidhaahdo aayad qur'aan jirto aayado badan baa jiro qur'aan ah sheekhu isdul taagay
وآيات كل يقع عن تسخيرك تسخيرك هو محين إلهي أدونك أبوري والله مروان بني آدم كو أبوري والله بركي لباد وحو حدنا أبوري إلهي نرشي عادي قاعد صوت مجتمعي ونرشي وأبوري صد حدا علاقة كده حينيسا حريركم حوية وكونك ونرشي وإنسانك أما بسيطة العلماء كلا أوديغان وإلهي يا كونك يا إنسانك حريرك كده حيني يمحون نغنيها حريرك كده حيني إلهي وحو كتل معمي علاقة التسخير إلهي كونك مركو أبوري إيك بني آدم كمركو أبوري كيف هوري كونك هوري ولذلك بالقرآن كوي لا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ملائكة دولك ويسيطة قاني ويقول دولك ماركي سنالك يا لها قف بانكينا يا خليفة عصب بانكينا يا مركا دولك وسي ديارنا وحانا لغو سي دياري دولك لغو سي برابرش لغو سمي إنسان كسود وقلنا ولا لها أو والله سي سخري أدي ميلا القرح دي ضيحي دولكي ونو سخرية دولك ونو ديار سيهاي القرآن محكو قال وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم ما في السماء والأرض مركا حريرك كدحيا إنسانك هي كونك وتسخير تغيير مركا هو كيمانيا سيشو هذا شخص عيده وحو كيمانيا إنه إنسان كبرت علم التسخير سنبرنا علم القرآن مسلمين وحي برتين علم القرآن القرآن كو يخريان بل يمكن ويحفظان بل وحسي لكن waxa ka maqan muslimiinta ilmu taskhir reer galbeedkuna muxuu yaqaan ilmu taskhir waxa ka maqan ilmu quraan oo sakhiray inka wuxuu ku dhahayaa waxa laga fikiraa imika sidii roob loo daasin lahaa dad ay dhahdo oo roobka ilaahay baa keenay soo daasine ilmu taskhir kiba leeyahay waxa laga fikiraa soo maaha bini aadanka ina umrigiisa la dheereeyo oo uunan lixdankii toddobaatan ku dhimanoo waxay dhahdeen imsuu gaari kara insaanku ay baadheen qaar waxaan 180 ilaa 240 baadheen marka waxaa laga fikirayaa in insaanka cumrigiisa la dheeray maxaa lagu dheeranayaa cudurrada ku dhaca insaanka intayna ku dhicin baa lagu sii dilayaa waxa loo yaqaan unugyada marka baa laga takhalusaya marka qofku wuxuu dhalanayaa waxay u bixiyeen al-insaanu supermarket ay dooraan supermarket radaan kaas ay sameeyaan doonayaan هو علم التسخير مركا هدي اللي هلو قوانين التسخير حيرش حكومة كون كسخيرات ديسا ويمكن سن لو اوغادي مارتي جاذبيه دلوك انو وحسو جيتو لما اقول بري هوري لكن قفكو اركي هنا وحي لا تورو دو كسو نقريو وحو سو نقريا لما غرنين الا نيكي تفاحه تورتوريو ساهو اغو تفاحه ما شاء واي وهل قانون كلا دادو جاذبيه دي سو جيتو شو يعني ها بركة تاسع مهمة إن شاء الله تعالى. أن كل يوم نوجد بنتو أنا سؤالها كقريب كرياش لكن سؤال لبس سؤال هذا كلا إنه هرسنا ربينا كويديو. أوكي. تربية ده يو دور كاي كل هذا هاي استبدل كمجتمع. أوكي. وقتها استبدلكم واللي يستبدلكم وذات كان يكالله وإن لبدلوا نفط اللي بعتضى نفط ما بالنفس تغيير النفس وإلا بدلوا سيدي النفط اللي هو بدلي صدح شيء اللي هو بدلي وإلا أبو رقنعه قفكو إلا قنعيه إنه يسبدل سمعيه هدان كو قنع إنه قفكو إنه يسبدل سمعيه وقنعه يسبدل كو سمعيه لكن يسبدل كمحا هرتاغن عالم الأفكار هرتاغن قفكي فكرته يسكت هدعيه ومجتمع كسور هادعي يا هريالا وديد إنه يسبدله أرنتاس مركا محي وباهنتهاي قناعته waxay u baahan tahay cilmi laakiin in laga bedelo waxa uu iska dhaadhiciyo waxa u baahan tahay tarbiyadana ayaa bixiya markaas tarbiyadu waa wax adag koo waxa bixiya horta tarbiyada waxa dejiye barnaamijka tarbiyada murabbiinta ragga tarbiyada sameeya siyaasadka tarbiyada dawladaha يا دجيا سؤال بيس ويديان محاربنا سؤال كليس ويديان وحاربنا سينو قارينا هدفك سينو قارينا سؤال كليس ويديان إنسان كأن تربية محوية يرتا إني فهمان إنسانك قفك سؤال كلا كدلتا أو محابة إنسان كان هايستبر بلام يدي باطوين
سؤال وحاس أسئلة الله أوروريا مركبة مربين تدجيان منهج كي قف الجوتر بيدني دولة هو ما كان حيسمع يعني منهج كاسوح الله قيبيا إلا يا أفر كو منهج كي اللي يقول جني سكول هذا سكولكم معها مال تعليم لو برتوا أقوال لو برتوا معها وما يقف لو سمعيه سو فكريه سو حوجة الله ليه سو حنا عيو سو حضر هيا مايو وحصل على صوبرا وحلا سمايا سكول هذا كهوسي سكول كذا حضانة هي كل سو برباري لو سو دياري بربارشك يا ماشى منهج لو دجيا وحلا تبرا والدها سيقوليها ilmaha ugu tarbiyadayaan kadibna jaamicadaha iyo wixii jaamacadaha ka dambeeya waxa la sameeyaa tababarada dadka wax tababaraya iyo manhaj loo dejiyaa intaas oo dhan waa qofka diyaarintiisa waa ciidaadkii walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ambiyadiisa soo diray uu diyaarsadaa muxuu yidhi nebi muuse litusnaca calaa cayni wastanactuka linafsi uu preparation u diyaariyey سو النبي يقول حنبارك رسالته أريتها تربيته وأريتها لبعض قناعة دي ولا سمين تربية ولا سمين أنا صدق حد بركة إيمان إيسا أنا صدق حد وحين ضدك وحي ليه دقن سلوك بيليه نكون رقمان سلوك بوزيتيف نقوليه نيجاتيف حمان نقوليه وناقل نقوليه مثلا السلوك وحن مسلمين إليه وحكم ده فوضى ضد نظام صنمه ودقن حين qofku wuxuu adduunka ugu dhacaa markaad wadannada markaad tagtiin islaamka iyo wadannada carabta afrika markaad joogtiin muxuu dhacaa qofku in la galo line adduunka wuxuu ka dhacay ma jiro muxuu dhacayaa wuxuu ku leeyahay inuu hore u gaadho doon wixii soo dhamaysto nin madaxa soo galaya kii meesha fadhiyey wax qaybinaya baa ku leh hebel soo soco meeshana waa lagu jiraa nin saaxiibkii oo sheekh reer Jabuuti wuxuu iga sheegay mar warshada korontadu lacag bixinayay waxaa fadhiyaa rag cadaana ayaa sidaba jooga 5 nin oo Faransiis iyo Mareykan isku jira iyagu waxay ku jiraan leenkii marka ninkii oo lacagta ka qaaday waa lacagtii shirkadii lacagta u wadaanba shirkadii kortay lacagta u wadaanba ninkii meesha fadhiyay kolba kii soo galo garanay u yeedha waril kale uu sayaa sheekhi markaan soo galay buuri waxaan daba galay 5 nin way soo eegeen buuri thank you madam thank you inaan daba gasho na dhaaf weeyay way hor way yaabanaayeen marka fowdadu ninkalo saaxiibkiina uu iga sheegay wuxuu yiri anoo Paris diyaar kaga dhacay iyo meesha marka airport ka soo baxnay baa leen dheer la galay kolba qof baa taxi raacay taxiga soo joogsanaya soo loo kala hore la raacaya meeshii baan eegay buuri ninka waa nin madaxa wuxuu yiri oo ma inta sugi kiiro soconka dhamar waa soo agmarnay dadka gaaladii saas noo soo yaab waxaan maxay leeyihiin waa soconay meeshii waxaa soo joogsanay taxiga la raacay taxiga uu naqadi way buuri markaa soo joogsanay korona baa dhadaa buuri kii ninka soo galan baa kor buuri annakii markaa taaganay mid carab aan arkay buuri koofiyada islaamka sidana una gartay buuri wuxuu dhahay dhageysta leela qaadi maaye madaarka yar fogaada markaa madaarka fogaatiin tagaasay meelahaas ka ordaya joojista laakiin kuwani ninkii khadka soo maray bay qaadayaan marka fawdadaas suluug xun Soomaal dhaqan xun si loo bedelo oo looga dhigay dhaqan tandiimi ah nabigeena ali sallallahu alayhi wasallam salaada markuu tujinaya saxaabada wuxuu lahayaa nidaamyada istawu haddana uu oranaya haddana marka qaarkood gacanta marinaya marka qaarkood safku dhex maraya marka qaarkood wuxuu leeyahay uu habaaraya qofka safka ka dambeeya salaadiisu ma saxsamayso wuxuu marka qaarkood wuxuu leeyahay halka dambe inaga arkaa gaadana inaga arkaa asameynaysiin oo ilaahay baa tusaya safkiina hagaaji waxa soo adag muxuu sameeyaa culimadu waxay yiraahdeen muslimiintu wuxuu bariyaa tandiimka nidaamka salaada maxay inna salata kanat ala almu'min mawqut maxaa waqti looga dhigay nidaam la baraya zakadii waa nidaam xashkii waa nidaam soonkii waa nidaam wala nidaaminaya ummad waxaan ahayn fawda wala nidaaminaya wadanada reer galbeedka waxay ku gargaaraan nidaamka waxa kamid ah dabeecadda nidaamisay qabow baa soo socda dhar bay xiranayaan cunta diyaarsanayaan leena qabowga inay kor tagaan kula imanaya dharka kula ka qaadan annaka dabeecaddiin waa isku garanka asiidin baa sideenaysa jiilaal iyo xagaa dabeecadii kuma oranaysa nidaami cunto la cuno xagaagii ma jirto cunto jiilaalkii la cuno ma jirto maalin kasta bariiskii waxaan iska cunaa hilibka iyo caanaha iska cabnaa isku mid ma cuntadeenu
laakiin cuntada dhankan waa la bedelaya waxaa leeyahay cuntadii jiilaalka cuntadii xagaaga cuntadii maarata energy ku siinaysay tii maarata biyo badan la cabaya sharaab badan in la cabo wax kula anagu si midaan u noolnahay fawdawiyiin baan nahay sidoo dhaad maxamed qutb bitabci nature dabiicadii baa nature ka fawdanartay marka haddaan weyno tarbiyadna problem baa dhacay marka talabaada tarbiyadu waa taa arinta ugu muhiimsan ee suluugu isma bedelo haddii fikraddu isbedelo weeyo weligaa waad ku daalaysaa muslimiinta aniga khudbadaha jimcaha markaan wadaadada dhegeysanayo boqolkiiba 90 waxay ka hadashaa dhaqanka in la bedelo laakiin waxaa ka fiican in la dhahdo fikirka bedela saad u fikiraysiin isbedela marka isbedeshiin dhaqankiinu isbedelaa dhaqanku waa natiijo laakiin haddii dhaqankaagu fiicnaado oo fikirkaagu uu xun yahay waad ku soo noqon halkii baad ku soo noqonaysaa marka taasina waa taas weeyaan marka tarbiyadu waa ta isku xidhaysa waxa fikirkii fiicneed iyo dhaqankii aan rabnay meesha u dhaxaysa weeyaan tarbiyadu fadilada sheekh cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay mid kaloo la xidhiidha taas tii kale oo ka dhalanaysa su-aasha tarbiyadda haddii loo dejinayo ilmihii ilaa yaraantiisii ilaa weynaantiisii miyaanu noqonayn un qof cajaladoo kale ah oo wixii lagu shubay uun odhanaya isbedelku marka halkuu ka imanaya haddii loo sii dejiya hawshan ka sax weeyaan horta waxay ka fikiraan dadka bini aadanka ah waxaa laga fikiraa in qofka laga dhigo muujina taqaanaan wadanada fardaha la koro waxaa loo sameeyaa faradka labada dhan baa laga xidhaa si uunan u erag halkan hore u socdo bini aadankana dad baa loogu talagalay inaa inta la xidho la dhahdo halkaa un maro meel kale ha arkin annaka qur-aanku wuxuu yidhi maya arrintu saas maaha indhahaagoo furan shaqee wax arag wax baadh wax doondoon walidaalika qur-aanka maxaa ku qoran waxaa ku qoran qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi mathna wafuraada uma tatafakkaruu ma bisaaxibikum min jinna nabigu waalan yahay bay dhaheen waxaa lagu yidhi sal slam waar qof iyo laba u fadhiistoo fikira maxay culimadu ka soo saar lagama taqaanaa waxay idhaahdeen alcaqlu ljamaaci qofku hadduu dad dhex fadhiyo dadku u ekaadaa laakiin qofku hadduu dadka dhex baxo keligii meel fadhiisto si sax u fikiraa iminka matalan soo qaad waxaan rabnaa inaan dadka kicino oday ugaasaa tahay matalan amba suldaan baa tahay dadka inaad kicisaa doonaysa hay ka bilaabaysaa reerkaad u yeedhaysaa waxaad leedahay haddaan anaku reer hebel nahay indhuhuna ma hayaan way naga sii jeedaan waa inay indhuhuna soo egaan dadku markaa maxay u fikirayaan si jamaaci u fikirayaan way soo raacayaan laakiin haddaad tiraahdid markaad dhegaysatid warbaahinta waan ka soo fikriyo caawaan soo noqonay lagu ogolaan maayo guriga markaad tagtid waxaad leedahay horta wuxuu sheegay maxaa ka saxa waxa saxda qoran waxa qaladka waa qoran ku soo noqon leedahay waxana waa sax waxaasina waa qalad maxaa taa keenaya waxaa keenaya waxa weeyaan in uu qofku u fikiro fardi waa inaad adoo mustaqila oo xor aqligaaga xuriya waa inaad fikirtid ee adoo aqligaaga lagu hayo in la fikira ma walidaalika waxay dhahdaan culimadu iminka waxay dhahdaan tarbiyadaha xun afar shay bay sameeyaan sheekhu tarbiyada koowaad waxay samaysaa iqtisaabu alcaqli soo gabdhaha lama maxaa dhahdaa lama kubsado caqligana waa la kubsadaa caqliga bini aadanka dadaa kubsada oo qaata oo waxay doonaan ka dhaadhiciya qofka wuxuu ku sheegayaa wax una saabaa la yidhi iyaa yidhi waa la yidhi halkee lagu yidhi walidaalika qur-aanku wuxuu ina baray walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm arrin lagaa yidhi ha raacide waxaad tirahdaa iyaa yidhi halkee lagu yidhi maxaa runa culimmadu waxay soo saareen qaacide cajiiba fuqahadiin waa cajiib waxay soo saareen qofka warinayow war saxa keen idaa kunta naaqilan fasixa war baa soo warinaysaa ha sa bukhaari muslim ay sameeyeen hay ka soo warisay waxaan ka soo wariyay sheekh saciid maad la kulantay ha waan la kulmay siduu u yidhi sheekh saciid maaragtay waxaa ku qoran xadiiska samictu iyo can isku mid maaha can abi hurayra iyo samictu isku mid maaha laba way kala sareeyaan agga muxadisiinta maxaa waxaan loo sameeyey waxaa loo sameeyey qofku inuu warka iska hubiyo okay maxaa ku xiga fa in kunta haddaad tahay hee mid warkan sheeganayo oo adu mudaciyana fadaliilu arrin baad keentay cusub oon hore u jirin iyaad keentay sida kitaabka sheekhan markuu qoray wax cusub baa kitaab ku jira muxuu keenaya maragyo daliilu keen aan kugu raacna dee marka qofka muslimka wuxuu raacaa war la hubiyey
iyo muxuu raacaa war marag leh war aan marag lahayn anigu waxaan aad ula yaabay oday baa weligii allihii been lagu qaban waayey oday Soomaaliya weligii allihii been waa lagu qaban waayey waxaa la war maanta been sidoo been u sheegi lahaa alfangal alla sameeyay meel baa la fadhiisiyey reer dumar ah waxaa la yidhi dheriyo soo qaada bariisna soo qaada cunto kariya dibi weynna halkaa la soo dhigo mididiina hala qaado raggii gowracayo dul haya mididii ninkii odaygu halkaa soo maro markuu marana usaa u eegana waxba ha samayn dhirkalooyda odaygii waxaa lagu yihi sheekh hebelow haa ma soo martay reerkii hebel geedkaa fadhiya haa waxay lahaayeen duce ma ducaysteen ninka Soomaaliga caadiga wuxuu leeyahay warkii bariiskuna yaallay markii dumarkuna ay fadhiyeen mididana waa kii la saaray dibiguna waa kii yaallay daarti waa lagu kala tagay haa buu oran lahaa war meeshii alxamdulilah waa la ducaystay buu oran lahaa odaygii wuxuu yihi kelmad quraato cajiib wuxuu war yaa anu dhariye waa arkayay bariisku garab yaallo oon lagu ridin dhariye weli dumar meesha fadhiyana waan arkayay dibi meesha joogo oon weli aan midida la saarinna waan arkayay intaa ma soo arkay warkii waan soo dhaafay ninkii muxuu sheegay wuxuu soo arkay uu sheegay bas laakiin wuxuu takhmiiniyay ma sheegin say la ahayd oo dhici karaysay oo waxaan markaa noqon aragno ma uuna sheegin walidaalika tarbiyada saxdii waa maxay qofka in la baro sida loo fikiro maaha in la baro inuu fikiro oo hagan inta mar lama habka saxda manhajka la raaco waa qofka la baraya sidee loo gaadhaa solution quraanku wuxuu na barayaa ha sidee solution loo gaadhaa sidee xal loo helaa marka quraanku wuxuu ku leeyahay waqul induru afala taqilun afala tatafakkarun afala tubsirun wax ma arkaysiin laakiin haddaad qofka ka tiraahid saanu arkayo u fikir si kale u arag wasi fircawn de ma uriikum illa ma ara waxaan arkayo aan arka wama ahdiikum illa sabiila rashad jidka toosan anigu ba aqaan anigu daba safta aniga daba socda marka dadkaasi waa dadka loo yaqaano awrta anaga waxa jiri jirtay marka yareen magaalo aan yaraantii aan joogi jiro dir dhabana dhado waxa jiri jiray oday qala geela xaaji diris baa dhada geela markuu qalayo maanta saddex uu qalaya saddex halaad wuxuu sameeyaa laba halaad oo waxa jirta laba awro la qalin laakiin waxay soo horkacan kuwa la qalayo way daba socdaan marka ay soo galaan majzaradii meeshii lagu qaliyay sariibadii markay soo galaan labada awr eenan qalnayga ku qornayna awrta soo kaxaya albaab ay ka baxaan waa la xidhaa kuwana maxay sameeyeen way soo galeen way soo doonteen wadkoodii markaasi dad baa jira daba socdo maxaa ku dhahdaa waxa dhaa taqriid ulama damir dan raacda anaga islaamku taa naga imacana wala dhahdaa la takun imacatan anaga ilaahay wuxuu naga yiri xataa marka war dhageysanaysid anigu ku waramaya wadalkayga waxa ku jiri kara waxa khalad waxa sax ku jiri kara maxaa sameynaysaa ilaahay wuxuu yiri yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu hadalka ha ka cabsina dhageyso qofkii doonay hadlo dhagaha kalaama dhageyso laakiin maxaad raacaysaa waxa fiican inta fiican bad raacaysaa inta xun ma raacaysid marka islaamku saas qofka u tarbiyada marka tarbiyadu maaha namadiya habka maaha tarbiyadu waa infitaaxiya waa in qofka indhaha loo furo qofku arki karo saas weeye in ka sii taasi adag tahay imika waxa jira buug u qoray nin Canadian wuxuu u bixiyay التفاهة adduunkan la doqomeeyey dadku waa la doqomeeyey nin kale oo sacuudiyana doctor Saalax ma dhahdaa wuxuu qoray al-ubudiyya an-naa'ima al-ubudiyya an-naa'ima adoonsiga softiga isagu ma badareen bay qofkiina adoon yahay laakiin waa adoon waxa lagu jeclaysiinayaa maxaa marka aad barnaamij daawanaysid maxaa ku soo galay eedha ku soo gasha shamiisha qurux baa ku soo galay xalada iibso waa lagu adoonsanayaa waxa meesha mar cadar fiican baa maraya maxaa lagu baxay walidaalika waxay dhahdaan culimadu sheekh Saciid oo ka baxayay waxay dhahdaan ragga waa la baaray ragga bini aadanka waa la baaray cilmi nafsi waxay raggu maxaa indhooga soo jiita laba shay baradi markay jid marayaan adarti nin kasto nina raganimadu u dhantahay markuu jid marayo markuu qubuur ag marayo ninku uu jeestaa waaga qabuuraha nin walba waxa la ogaaday maqaabirta iyo meelaha qabuurta ma dhaafninku indhiis way eegaan waa ragga dumarku ma jiraan taas raggu way eegaan
midda labaad ragga maxaa indhowga soo jiita dumarka nin kasti oo nin ah wadaadna ha noqday hadday gabadh ha kaa marto dirkaa ka soo noqonaysaa ha mar gabadhu macaana baad leedahay waa soo noqonaysaa ragga gabdhuhu way soo jiitaan okay laakiin dumarku raggu ma soo jiitaan raggay doonayaan baa soo jiita ninkay doonaysa ba soo jiita marka taa maxaa laga soo saaray cilmi nafsiga maxaa laga soo saaray waxaa laga soo saaray marka la rabo in ragga adduunka wax laga iibiyo gabadhaa lagu sawiraya meesha baabuur iyo gabadh maxaa isku xidhay baabuur baa la iibinayaa gabadh qurux badan baa saa u garab joogta cadar nin leeyaha la iibinayaa cadarkii maxaa maraya gabadhii cadar nin baa cadar marsaday gabadh baa la raacday sanka gabadh had iyo jeer gabadh qaawan gabadh qurux badan waa lagu soo sareeyaa marka waxa weeyaan waa mujtamac la adoonsanayo oo lagu adoonsanayo waxa loo yaqaano baahida jazaaka allah khayr su-aashii ugu dambeysay ee kitaabkan aynu caawa gorfaynayno anigu soo diyaariyey waxaa ka mid ahayd kaatibku ama qoraagu wuxuu leeyahay isbeddelku wuxuu ka bilaabmaa fardiga ama qofka dad kalena waxay leeyihiin dadku isma bedeli karaan ama bulshadu ilaa isbedelaan xukaamtooda marka keebaa sideebaa la isku waafajinaya labadaas okay horta su-aashan waa su-aal adag weeyaan waa su-aalaha cilmiga bulshada ugu adag weeyaan taariikhda soo martay ma isbedelku ma dushuu ka soo dhaadhaca mise hoostu ka yimaadaa ma qawaaciddaa la bedelaa mise qiyaadada la bedelaa waa su-aal daaweyn oo madaxa daalinaysa weeyaan laakiin waxaa loo kala baxay 3 iskuul oo waaweyn baa caalamka loo kala baxay iskuul waxaa jira wuxuu idhaahdaa markay dushu isbedisho hadday dushu caafimaad qabto mujtamac way bedeli karaysaa iskuulka waxaa rumaysan mufakiriin waaweyn oo islaam baa rumaysan waxaa kamid ah Jamaluddin Afghani sheekhii la oranayay waxaa rumaysan oo aada u rumaysnaa nin suudaani iyo xasan turaabi la oran jiray waxay rumaysan yihiin taqyiirku hadduu dusha ka dhaco bulshada waa la hogaamin karaa marka taqyiirku waa inuu dusha ka dhaco waa inay hadday ummaddu hesho eeg dushuna maaha qof maaha waa inay hesho elite nukhba waa inay hesho ujeeddo loo dadka qaadan karta qolada labaad waxay leeyihiin isbedelka waa inuu ka yimaado hoostu hadday isbedisho haw ka yimaada madaxu dadku ka soo baxaa walidaalika waxay soo qaataan ninkii la dilay xajaaj dilay saciid ibnu jubayr raximahullah ayaa intuuna dilin xajaaj iyo arkay culimmadii islaamka oo biskiit fadhido habaaraysa xajaaj ibnu yuusuf habaar bay la fadhiyaa ilaahu xajaaj naga qaad ilaahu naga qaad isagoo u dhex yimid u dhageystay wuxuu war dhageysta haddii xajaaj la qaado yaa bedeli doona maad garanayseen may khinziirada iyo daanyaradan xukumi doona xaaladda aad tihiin haddaad sii ahaataan xajaaj ibnu yuusuf inaku inaga dhex yimid marka xajaaj habaarinaya inagu is hagaajiya haddaad hagaagtiin madax fiican oo xajaaj ka fiican baa inoo iman cali bin abi aalib u yimaadeen dadka saxaabada qaarkood waxay ku yidhahdeen muslimiintii caliyow sidii cumar noo xakun siduu cumar noo xakumi jiray noo xakun sidii cumar noo xakuntide wuxuu yidhi ahlan wasahlan inaguna waxaad noqotiin buu ihi shicibkii cumar aniguna waxaa noqon buu ihi cumar inaguna shicibkii cumar noqda anu markaan cumar una xukumay ana ahaa buri shicibka cumar laakiin maanta ininkaa shicibkaygii ah marka ininkaana sidii ahayn marka taqyiirka qorada waxay ku leeyihiin waa inuu shicibku isbedilo marka waxaa isbedelaya maxaa isbedelaya madaxda dushaa isbedelaysa culamada qaar waxay dhahdeen maya qaacidadu waa sida kale ondhaysa san ba u dhigan tahay ko waxay dhahdaan xumaan oo dhan dushay ka soo dhadhacdaa xumaan oo dhan horta waxaa isbedela madaxda marka waa shicibka la bedelaa xumaanta hagga xumaanta waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadamarnaaha tadmiiran hadduu ilaahay rabo inuu ummad burburiyo muxuu sameeyaa kuwa dusha ayaa faasiqiin noqda taraf waa qiraa'o qiraa'adka maxaa jira amarnaa baa miimka la shaday maxay ka tahay dadka xoololeyda maraykanka la socon kartaa kumase lacaglayda ayaa madax noqota xoololeyda madax noqota walidaalika waxaa dhahdaa xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay xoolaha iyo maamulka
muxuu yahay xidhiidh ka dhexeeya taariikhdoo dhan waxaa ka dhexeeya xoolaha iyaa kursiga ku geynaya nidaamka dimuqraadiyadda raasimaaliyadda qof aan xoolo lahayn siduu noqon karaa madax ma noqon karo hadduu noqdana waa in lacag loo ururiyo dee sidii obama dee waa in dadku lacag fariiso malaayiin milyaar la ururiyo bilaa lacag ma lagu noqon karaa madaxa wadamada kapitalism raasimaaliyadda lama noqon karo okay taasi waa mid maxaa yidhi maalkii baa ku geynaya kursiga dhinaca kaleetana maxay kursigaa kuu keenayo xoolihii africa adoo faqiiraad kursiga qabsanay amba inqilaab ku qabso amba dadka soo waalo madax noqo kol ma fadhiisatay ha bacda 2 sanadood adaa ugu lacag badan wadanka xoolihii waxaa kuu keenay kursigaa kuu keenay walidaalika bay suuratu lqasas isku xidhay fircawn iyo qaaruun maxaa qaaruun iyo fircawn isku xidhay maxaana suuradda qasas loogu bixiyay ina fircawna calaa fi lardi halka dambaytana waxaa la keenay ina qaaruuna kaana min qowmi muusa muxuu sameeyey fircawn calaa muxuu sameeyey qaaruuna baqa fabaqa qofka xooluhu waxay u keenaan qooq fakharaja fii ziinatihi calaa qowmihi baabuur yar iyo xoolo waaweyn qofka dadka waa hormaraysaa dadka indhaha ka dilaysaa dadku way naxayaan yaa layta lana misla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim masdhiibayaan laakiin dadkii baa laba u kala baxayo waxay leeyihin qoladii cilmiga lahayd waxay leeyihiin war weylakum hoog baa inii ahaadee wuxuu ilaahay nisiyaa ka fiican ninkane ya haku daba jejabina cilaaqada markaa labadaa ka dhaxaysa waa maxay waxay leeyihiin xumaantu dusha ka soo dhadhaca dusha xumaanta shicibka marka loo fafasaquu fiiha wanaaguna hoostuu ka yimaadaa walidaalika ambiyadu waxay ka bilaabeen islaaxa markay sameynayaan waxaa loo yaqaana islaax loo yaqaana iminka afka qalaad reform marka ummadda dib loo hagaajinayo waa dib u hagaajin marka ummadda dib loo hagaajinaya halkee laga bilaabaa hoostaa laga bilaabaa nabigu waxaa yihi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabba lama dhaafa dadkaasi taqyiirka waxaa sameeya dadka masaakiinta ah dadka aan lahayn ujeedo adduun nin jeebku u bararsan yahay haddaa ka tara isbedel samee waligaa waqtiga iga ridin buu kuleeyahay waqti badan oo isku bedelo ma haystee way gashay hayga xumay buu kuleeyahay haddaad ku tiraahdid war maanta wadankeenu wuxuu u baahan yahay inaa waxaan la sameeyo waxaan la sabro oo maba kareeba sabiri waxaan wuxuu kuleeyahay meesha waqti baa igu socda laakiin ninkan miskiinka bilaal iyo salmaan iyo waqti badan bay haysteen isku bedelaan oo ay nabiga la fadhiyaan marka waxa uu wasbir nafsaka maca alladina yadcuuna rabbahum bilghadaati yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati dunya saddexdaa bay dadku u kala baxeen laakiin waxaa jirta madrasada la pragmatiyad oo islaamiyada pragmatigu marna wuxuu yahay marna wuu fiican yahay pragmatigu waxa weeyaan waa camali laakiin pragmatigu marka dhinaca kale loo bedelo waxa weeyaan waa alghaaya tubarrir alwasiila waa Machiavelli sama aqoon Machiavelli weeyaan dantaada u saxsaxa si aad u gaar lahayd laakiin tani pragmatiga islaamiga waxa weeyaan in la isku daro mabdii iyo maslaxadii oo maxay in shicibkana la soo dhiso madaxdana la hagaajiyo labada waa in la wado waa uu qaatay Erdogan inkastoo ku guuleysan 100% waxaa socota qur'aan dad la xafisiyo dacwad baa hoose ka socota uu fasaxay ducaadii dushiina isaga soo hagaajinaya laakiin dusha waxa kugu sugaya waraabayaal rag waxaa meesha fadhiya xididaystay oo loo yaqaan dawlad camiiqa filim waxaa jira waa lagu turjumay carabi iyo english iyo french waa lagu turjumay waxa dhada waadi diab waxa weeyaan waa dixdii iyada waxaa laga bilaabayaa 2000 iyo laga soo bilaabayaa ilaa imika ninkan imika wasiirka arrimaha dibadda uu ka dhigay laga bedelaya ninkii badbaadiyay markii inqilaabka lagu sameeyay marka waxaa laga metelayaa sidee bay dowladda dhexdiisa u fadhiyeen dowlado kale wadanka Turkiga oo ay leeyihiin dowladda dibadda ah oo wadanka loo diiday inuu dhaqaaqo hadduu dhaqaaqo lugaha soo qabanay marka Erdogan markuu yimid dowladdii hagaajiyay wuxuu arkay meel ciyaarayna meeshu ahayn marka wuxuu sameeyay mukhaabaraad dowladdu ay lahayn isagu leeyahay mukhaabaraadkii uu sameeyay wuxuu ka yiri mukhaabaraadkan laaya la dagaalama dhex gala waa la furfuray هذا فيلم هذا waa konton xalaqo waa konton xalaqo waa musalsal waa konton saacadood xalaqadii waa saacad weeyaan anu waxaan socdaa xalaqadii 19
رمضان كان بلا مركا مين كما يرضى مركا صلاة الله تكذب مركا بحوث سمعنا فيلين كاس وحكو تصيا دوش مركا وحكسو بديل سيد وحكو سوغيا ومعيار دادير اي عدير دادير هوستا مركا كبديل سينا الشعب دنتا كسوغيا oo baariyay oo in la kiciyo u baahan waqti badan ka qaadanaya labada waa inaad kana soo dhistid shicibkii dushiina soo hagaajisid marka ma dhaxal isku yimaado marka dirida baa ugu islaam way ugu fiican tahay insha Allah ta'ala jazakum Allah khair qad ma santay fadiilatu sheekh Abdurrahman hadana waxaan u gudbinayaa su'aalaha walaalaha ka soo qayb galay kulankan iyo falanqaynta buuga su'aalaha dad qabto magacaaga sheegi doontaa haddii aad tacliiq samaynaysana waad soo koobaysaa in ka yar hal daqiiqo dadka live ku daawanaya insha Allah wax soo gudbin kartaan su'aalihiina kad waxaan u gudbinaynaa ardayda inta noola fadhida iyo marti sharafeedka insha Allah su'aal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وموليد أحمد لي فضيلة الشيخ إلهكم بركاته وكثر الله أمثالك سؤال بان قباه وحاوي اسبدل مرك الله سمعين أيوه هدنا أتكشى كيسي ضبعي أمد إسلامي إنه يهي ضبعي فوضى لكن ديت إسلامي معها وهذا تذكر هذا شوقة قفكي ربا إنه اسبدل دوره option far badan ba hortiisa yaala isbedel dabeecadeed midka hadda adigu aad asaastay ee akhrinta iyo kobcista maan korinta ah isbedel dhaqan oo sida suluukiga ah in la raaco laynka iyo waxaas isbedel caa'iladaadii ilmahaagii arabtana ku samayso keebaad isleedahay awliyaadka kaa ku horumarkaas kaas ku keenaya kaa samee hal mar hadda isbedel bedesho dabcan waxay ku noqonaysaa wax halkii magaras aad baa maasantahay jazaak Allah khair وإياك إن شاء الله magacaygu Cabdiraxmaan Geelle su'aasheedu waxa weeyaan si waaqici ah raadib u soo noqo Soomaaliya hadda dawladda Soomaaliya jirta maadaama rabna wax taqyiir aad ka hadlaysi isbedel badan bay soo martay waxaan rabnaa ballan nooga faa'iideyso inkastoo culimada qaarkood hadda waxay kala saarayaan siyaasadii iyo waxay rabaan inay diinta kala saaraan oo in maxaadaro iyo dacwadii un ruuxiga ahayd laakiin taqyiirkan guud ee reformka ah haddaan dawlad islaam ah oo waaqic la socota aan la asaasin oo shacabku aynan helin taqyiirku waxba masaajidka ruuxiga baa la dhisayaa masaajid cibaadadii baa laga dhisayaa marka Soomaaliya dhib baa ka jira wada ogtahay hadda isbedel badan way soo mareen haddana isbedelkeedu wali ilaa hadda sidii la rabay ma ah taqyiir intee lag iyo halkee laga waxaan rabaa in halkaas taqyiirka aad dhexgeliso oo dadkana daawanaya iyo annagaba aad nooga faa'iideyso maadaama aad fakirtaa in caalimna tahay aan runtii jecelahay inaad waaqicana aad wax ku salayso insha Allah ta'ala جزاك الله خير اوكي جزاكم الله خير استاذ موليد سؤاشيسا horta waxay yiraahdaan culimadu waajibaadku way istazaaxumaan tazaaxumku waxa weeyaan waajibaadku way isciriyaan markay isciriyaan waxay kugu qasbaan inaad kala dooratid saddex waajib oo inaad wada qabatid ku hor iman laakiin waa inaad kala qabatid mar qoramo wada qaban kartid midaal baan ku siinayaa waajib waxaa jira inaad guursatid waajib bay kugu noqotay goorma waajib noqotaa guurka markuu qofku ka boqo inuu dhibaato ku dhaco waa waajib waxaa haddana ku hor imatay waajib labaad oo ah inaad xoolaad haysataa fiican xashkii inaad tagtid sanadka dambe inaad gaartid ilaahay baa garanaya okay waa inaad xashkii tagtid tu saddexaad ku hor imatay waajib saddexaad oo imikadaa ku sugaya hooyadaa matalan oo nool baa ku tiri waxaan rabaa inaad ii imatid oo soo gaadhid maraykanaa joogtaa inta kenya nairobi fadhidaa ka soo qadan waxay fadhidaa halkiisa saddexdaa waajib tasaaxamat calayk fi aanin waaxid si u kala guri waa inaad awlawey samaysid awlaweyda culammadu waxay yidhahdaan sidaa ay tahay horta waxaa la eegi xajka waxay dhahdeen ma wuxuu ku waajibaa cala alfawr am cala taraakhi
culimadeena shaaficiyadu waxay leedahay xashku wuxuu ku waajibaa imika bise wuxuu ku waajibaa waqtigu iska haystaa khaasatan in dhalinyaro aad tahay waxaa la filayaa inaad noolaan kartid caafimaad baad leedahay ilahay ba ayaa haya marka xashku kuma waajiba cala alfawr wuxuu ku waajibaa cala taraakhi waxaa markaa ka horeynaya labadii kale oo ahayd dembigaad ka cabsoonaysa inaad ku dhacdid oo zinadii ah inaad guursatid iyo maxaa ka horeynaya inaad hooyo u tagtid labadiiba haddana isqabsaday hooyaa horeynay oo xaq ah laakiin waa xaq khayri ah waa xaq iyadu ay leedahay iyo inaad zina ku dhacdid oo ah xaq rabbaani ah oo ilaahay baa kugu xisaabada zina ku dhacdid tanna waa lagu xisaabay lakin zina ku dhacaysaa culimada waxay yidhahdeen matalan sidii ninkii hooyadii u yeedhay isagoo sunno salaad tukanaya ee markuu u aqbali waayey ay habaartay culimadu waxay ka soo saareen haddaad salaad farada tukanaysid kama baxaysid lakin haddaad salaad sunna tukanaysid waad ka baxaysaa hadduu aabba kula hadla amba hoy ku hadasho amba xaaskeyga hadduu odaygu la hadlo dhado ibla ikala ka dhado waan ku baanay ibla war maxay ka ragtay sunna ku jira hadday ku tirado problem weyaan maaha waxba caynkaasi aan waa in cilmiga la bartay mogta okay maxaa markaa halkan ka dhacaya waxay yidhahdaan culimmadu waxaa la horeysiinayaa inaan zina ku dhicin markaana aad u diyaarisid hooyada inaad u tagtid okay awlawiyaatu taqyiirna hagga way jirtaan yaa isbedelaya horta ma qoyskaad bedeli mise adaarta isbedeli mise bulshadaad bedeli hortaad isbedelaa awlawiyatu taqyiir waa qofku inuu isbedelo weyaan walidalika culimmadu waxay dhahdaan man lam yatagayar laa yugayar qof aan isbedelin waxma bedeli karayo hadduu haddaad isbedeli karood haddaad ku guuleysan kari naftaada xakutid waxba ma xakumi karaysid walidalika culimadu waxay dhahdaan ma qofka raqabaadka la jihaatamaya adag mise qofka jihaadka cadowga kula jira ka adag qofka raqabaadkiisa la dagaalamaya adag naftiisa qofka ka adkaanaya maalinta naftaa ka adkaatid waxaa kaloo aad ka adkaan karaysa ninka naftiisa hogaamiya bulshadana u hogaamin karaya walidalika anu waxaan idhahdaa qoysaskeena fashalka waxa ugu wacan waa annakiibaa fashilan marka qoyskeena waa fashilmaya markaas awliyada waxa oran lahaa horta qofka isbedelo taqyiirka waa inuu qofku sameeyo kadib inuu qoyska ku sameeyo kadib inuu bulshada ku sameeyo saamayna kugu horeeya cabdiraxmaan geelle insha allah taqyiirkaas soomaalidu u baahan tahay horta soomaalidu soomaali oo dhan maahine muslim oo dhan iyo carab oo dhan isku imaanahay naxnu fi lhami sawa dhada dadka sharqiga waa isku egyihiin anigu waxaan aaminsanahay soomaalida ma dawlad baa ka burburtay mise waxaa ka burburay wax dawlad ka weyn su-aashaan baaraa iminka soomaalida dawlad kama burburin waxaa burburay qofka soomaaliga qofkii markuu burburay dawladdiina u burburiyey iyaga markaa qofka soomaaliga la sheekeysanaysa dad ka tiraahdeed waxaan rabnaa inaan dawlad dhisano ama waddan dhisano ama dhul dhisano si uma fikirayo waxaa loo yaqaana tafkiiru sixi si caafimaad qabo ma fikirayo si jiran buu fikiraya wuxuu kuleeyahay maxaan dawlad dhisanaa problem baan haystay maxaan haystay reebel baan haystay khalaas waa qof jiran waxaa la sheekeysanaysid lidalika nabigeena sala allah alay salam markuu bedilayay mujtamaca markuu bedilayay kama bilaabin bedelka dhibaatooyinkii haystay ma bedelin dhibaatadaas dadku bedeli dadkana intee la bedelaa waa su-aal muhiim ah su-aashaasi dadka intee la bedelaa sida dadka u bedelaan mataqaanaa boqolkiiba 3 haddaan boqolkiiba 3 ku guuleysano soomaaliya inaan bedilo soomaaliya isbedelaysaa boqolkiiba 3 waa mis markaa imika saxaabada nebigu maalintii uu nebigu joogay maxaa dhahdaa xajatul wadaac imisa la xajiday 100,000 114 ka soo qaad saxaabada ku qoran usdulqaaba iyo kutubta lagu soo ururiyey ee taariikhda gashay waa imisa waa 1500 1500 baa la yaqaanaa oo taariikhda gashay maxay hogaaminayaan 100,000 صحابة أوردهم بقولك وصحابة كل من رأى الرسول وآمن به وصحابي صما ومات على ذلك وصحابي إذا صحابة النبي قيمها وين له وحه جاميني وكون يشان بقول كون يشان بقول ما حيقدر هو بقولك صلابة بقولك كل نقطة ملاك صدق بقول سيدته من أفر بقول ملاك سوق إمساه جامسة بريك
هل مليون مدن هل مليون مدن وحاه جامية وهدات النخبة إليتا وبقول كيبا لبا إلا صدح بطن كإنت على ضد كاسحيا إذا هدار إنه إن الصومالي بدلوا جيبوتي بدلوا السودان بدلوا معربنا إن بدل كل عب بقول كيبا صدح سيديرو بدل مركب بقول كيبا صدح وإن يسكب بدل المسكحة عقلية وين فكرية وين عالم الأفكار وين اللي بدلوا هذه عالم الأفكار يسبدشوا وصار فكرين عن تغيير كسامينه يسبدلوا وين بكون على صوماليا لكن أنا تاسو حنا قبضت المدفر بدن waxaynu u baahan tahay ilaa 4 barnaamij oo anisa ila tahay waaweyn barnaamijka koobaad waxaa la yiraahdaa barnaamijka nuqbada dadka elite labeenta ee matal hadaan haysan lahayn ka soo qaad hadaan haysan lahayn 100 nin oo gaari oo kala nin saaxiibka ah oo dawladda inuu galo iyo shaqaysta jeclaa oo markii dambana dawladda galay naga barbay wadaadadu naga barbay ninkaasi wuxuu saaxiib lahaa كاريه أنا هرجيسان جوجا كاريه لا صعدا كاريه وحمري كري ويا طريق جدك قف السلام عليكم شيخ كاريه السلام عليكم ولا ويا باي نكي يوحو كل ريجي بوتيها وركاريه ها مدحوين اسكو شرح دي ومضى سيكو جعشا يقول كاريه وحولي أيان تان اسكو شرح مدحويني قفني ما سلام يا طريقة أنا يقول مرة بقول يا صاحب كده أنا مرة بقول إن أنا كرسي قلا وحربا إن أنا ما نكوجا وحكا قبطه ما نكوجا إن وحكا قبطه رباب قبل يقول شيء آخرين يسأل لها قبل ما كده تقول آخرية سمعين أوكي هذا هي جديد كاس أو كلا هذا هي جديد مركا بقول إنه عين كاسة بقول إنه مرتي الشيخ مصطفى حج اسماعيل وكلا بقول إنه مثلا محاكو هذا مفكر كلو سومالي هذا لا يقانو مرتي فرديا مثل حمر جوجا بمارتي جوجا بوساسو بيش دون هجوجا رك بدن ما لنا هذا هلو أو دليرة عن هلو تاسو تكوبا أني طلبت إليت واحد لو وحيا waxay noogu xinaan barnaamij sameeyno barnaamijyadu sameeyo kala shaab baraag kale barnaamijyada tadriibka ila sameeyo tababaro dadka lagu bedeliyo badaxooga hada tababaradu waa muhiim jiddan waliba leadership inaan sameeyno dad leadership qiyaado waa inaan sameeyno waxay yiraahdaan culimadu imika waxay soo saareen qof kasti oo bini aadana wuxuu dhashaa isagoo hogaamiya laakiin marka uu sheegto bajir socdo hogaamiye ka wabaaday boqolkiiba labada ma soo hadhay saddexdan qof kasta inuu hogaamiye ku dhashay maxaa ka baabiyey marka ugu horeysa hooyada baabiyey ilmaha yar ee lagu leeyahay had jeer fadhiiso seexo hus cun ya wali maartay islaan Soomaaliyeed oo kale hooyo ma baahatay inaa cunto cuntid maya hay bas hooyo marka u baahatay hooyada baad wali cun belad hooyo cun haduu cuno cun baan ku leeyahay cun ilmaha waxa laga qaaday iraadadii rabitaanka laga qaaday ma aragtay ilmo yar oo intuu soo galay rag waaweyn oo Soomaaliya oo shir ku jirta intuu fadhiistay la daayay maartay baxba la leeyahay mashruuc weyn ma fadhiyo maxaa ka fadhiyo waxaad ka waddanada carabta kuwid maraan joogay sheekh weyn ma la fadhinay meel diiwaaniyada oo mufakir weyn ah inankiisa yar soo galay 10 jir ah wuxuu ka yiri yaa qaa'id al-mustaqbal ta'al ijlisuna shan iyo labaatan sano ka soo wareegtay waqtigaas ninkii sidaa yidhi maalinta inankiisu maanta baarlamaanka kuwait buu ku jiraa ee la baabiyo intii qaa'id mustaqbal baa soo fadhiisan kan una dhex fadhiisidii waa ilmo yaro 10 jir ah wuxuu dhex fadhiyaa rag culimo ah oo diyaar ah ayuu dhex fadhiyaa marka taasina waa ka mid tadriibku waxaa kaloo ka mid ah inaan wax ka qabanno waxaa ka mid ah in dhalinyarada badan baan igu xidhay imka arkaa dhalinyarada inaan tashjiicino ku tashjiicino in ay sugin Abdurrahman adiga iyo suudigina sugina in li yoro dhada kale wadanka qabta in lagu yiraahdo dhada kale oo dhulka nala xukuma amba kale ma jirto taas odayaashu kama ka aan kursiga ilaa dhimanayaan marka waxa la rabaa in inta is urursataan inkoo tababaradana qaatay waxaana rumaysan inaad qaadataan ana laha waxa dhada al-mubadara ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ku tarbiyay inay qaataan mubaadarada inay kala yimaadeen
waxaan aad u xasuustaa markii nebi yuusuf calayhi salaam annaga xitaa wadaadii waxaan lagu tarbiyey dacwadda markaa yareen waxba ha doonin ilaa lagu garto saxa maa waxaas yaa ku garan adduunka kii wax arkay yaa la dilayaaba si nebi yuusuf oo kale waxbuu arkay wuxuu ihi waxaa walaalihii baa dilay meesha adduunka laskuma ogolo baasha markaa laguma ogolee hee saka u taag baasho soco hadda ragga nimadkaas nebi yuusuf muxuu ka yidhi boqorkii wuxuu yidhi innaka alyawma ladayna makiinun amiin ninaad tahay baasha waan kuu dhiibaynaa muu oran wallaahi waan soo fikiriyey mubaadareeda ijcalji iga yeel calaa khazaa'in alard baasha meesha lacagtu taala ii dhibo dalka meesha ay u wadan hadduu dhintaa ma taqaanaa meesha xoolu yaalin buu dhinta inii xafiidun caliim laakin waxaan leeyahay laba arrimood waan xafidi ammaano weeyaan cilmigeygiina waa leeyahay arrinta saddexaad afraad ee ugu dambeysa isbedel marka aan rabno soomaaliya aan marka fikiray soomaaliya markaan isbedel rabno soomaaliya waxaa jira 4 qolo sicir barar ku dhacay oo la rabo in la saxo siyaasiyiinta sicir barar baa ku dhacay qof kasti oo soomaaliya waa siyaasi adduunka saa lama aragtay adduunka qof kasta siyaasi ma siyaasaddu waa in yar laakiin soomaalida waa siyaasiyiin waxaan arkay magaalada Nairobi dad siyaasadda wada gaadaya meesha 300 iyo 250 kursi weeyaane waxaan inta la iga fadhiisanaya hay kala tagayaan waa adduunkii loo kala soo filahaa kursiga wada eeganaya markaa taasi waa problem midda labaad qofkii af carabi yar bartay iyo diin yar bartay waa wadaad korku sii daayay yaandu duubtay sicir barar baa ku dhacday Madiina lababa kala dambeynaya mid ba arkaysaa isagoo ku taagan Sheekh Umal war Sheekh Umal waa Sheekh Calaame balkiina fadhiiso ما يوم شيء شيخ أنا والله بعد ما بورت يرنص مثل الله الشيخ در كنت أقبل درك بس كان الله هذا ورحت ذاك ما وضع شيخ كانت يقرك سعر برا بكون عتانا تصدق حد بجرت سلطانك وسعر برا بكون عاي عانوا الوضع شوية ذاك يوم عانوا بس وضع شوية سلطان ما نقضي غيرها الصومال بريور سلطان كدوش أبو جوجي سواء إله إله هو أساس سلاطين له سوسام تصدق عن سلطان متاعي سلطان برا بكون عاي أرنت أفراد الصومالي ده مرة ضدك بروبلم كقوة هستير يكون عادي واحد ويان وواحد الله يقع عن السوشيال بالكن كان وحسمي جريمة سمي ضدك ما قرنا يعني قف الدون كيهل تجري بريورة من علم لو بلد يسجري راديو تلفزيون تجري قف علم لا تجري ما فرق أنا ناس كبر سنة هاي وحلا هاي شيء غيب البحر وحاجة بامبوش لا لا dadkiina maxay galaan qof ninku ka qiimo weyn baa la qabsadaa waxa heli share badan sideetan kun baa dhigay kulliya marka خلاص qofka ka fadhiya ولذلك مصطفى حاج اسماعيل شيخ wuxuu yiri Soomaalidu waa dadka quraatay dadkooga walwaalan dhageystood waa mujtamaca qura ee dadkooga walwaalan dhageysto weeyaan buu laakiin ma aha Soomaalidu carabtuna asaasan adduunka asaas waxaa la dhageysaa taafihuun oo taafihaad dadka la dhageystaa marka anaga maxaan rabnaa inaan kuwaa bedilno marka ikhwaani fiillah meesha ay ka dhowdahay Cabdiraxmaan oo in Soomaalida laga bedelayo waa inaan ku daalin inaan Soomaali oo dhan bedelo amba Djibouti oo dhan bedelo amba Kenya oo dhan bedelo maaha waa inaan bedelo boqolkiiba 3 maxaa loo yaqaanaa kutal xadija dadka adag isbedelka sameeyaa intaas weeyaan intaas lagu bedelaa jazakallahu khair waxaanu laba su'aalood baynu ku soo xiri doonaa insha Allah taala جزاك الله شيخ magacay waa maxamed su'aal yar oo kooban oo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ku saabsan shakhsiga Soomaaliga sidaan ognahay hadda Mareykan ma joognaa anigu tusaale ahaan oo kale Ethiopia ku dhashay dhalasho Ethiopia kama haysto Soomaaliyana dhalasho kama qaadan muwaadinimadii ugu horeysay halkan aan ku noqday saddexdaas shakhsiyadood oo iska hor imanaya markay noqoto wadaniyada iyo ba igu dhex abuuran Soomaalinimadii goobtii aan ku dhashay iyo goobtaan ku noolay marka shakhsi markuu doonayo inuu isagu isbedel la yimaado marka ugu horeysa horta inuu isbarto oo qofku yahay iyo shakhsiyadiisii xaqiiqsadaba meesha ku jirta sideeba marka qofka Soomaaliga ama shan qadiyadood oo midii qabiilka
diintii meeshuu ku koray meeshuu hadda ku nool yahay iyo meeshii reerkiisu ka soo qaxeen ay ku dhex nooshahay isbeddel uu samayn karaa oo uu maaragtay qofkaasi u noqon karaa qof leh meeluu ku abtirsado ama diin ha noqoto ama dhul ha noqoto ama dad ha noqote. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الرحمن هذا ما سنتهي إلى سبحانه وتعالى كبركة. سؤال أورنتي مهم كويدي الأبور ويان محمد نعم الأبور ويان وسؤال كل هوية لا حريد قف كصومالي قلت يس ويزدون دونية لبس سؤالات بن كودر صلها تغيير كبلشدة عدي بدري لهيد أفر قيبض والرماد ولو بهاي بات المات كان شخصية سوقف الشخصية ومعي الباب بدو يسبدل كجلي كريو الباب بدو يسبدل كجلي كريو علاقة انت لأج باكد حيس يسبدل كقفك إيو خلوده إيو خلوده قفك إنه وقت نفتي سلقات هل منهم قدر عليه magacaygu waa xuseen sheekh nuur xuseen aniga arintaas kama fogi neerka dhalinyarada laakiin qaybtaas macnaha soomaaliga ah maadaama dalka soomaaliya uu yahay awoodii koowaad oo aan fiirsanayno soomaali quwad leh aan raadinayno aan kana warqabno soomaaliya hadda inay qaab oo dad ajaaniba fikriis lagu kala googooyey oo loo baxshay magacyo iyo calamo iyadoo marka hore dhibaatada ugu badan Soomaaliya la ildarnay la leeyahay waxay ahayd koow inay ahaayeen qabaa'il qaabkiis loo burburiyay misna magacii qabaa'ilka oo dawladda laga dhigay hadda systemka loo sameeyay arhaasee ku helaynaa dawlad awood leh oo dadka ay ku mansab sheegtaan yiraahdaan dalkaasan difaacanayna ayagoo dadka maskaxdoodii iyo qalbigtoodii inta badan u qaybsantay qaab oo maamulo go'aan ah. جزاك الله خير. sheekh cabdiraxmaan su-aalahaasn kuwii ugu dambeeyay insha allah noqon doonaan mid aan rabo inaan ka dabageeyo su-aashii aan ina weydiiyey walaalkeen cabdiraxmaan waxaad tiri idinku inaad dhaqaaqdaan sidee baynu isu waafajinaa taladaada iyo xadiiskii ahaa qofka isagu raadsada imaarada الإمارة. نعم الحرص على الإمارة. أوكي جزاك الله خير شيخ 65 أستاذ محمد waxaad sheegtay mowduuc iminka aada loo baadho oo la yidhaahdo ahaanta qofka idanteegiisa qofka maxaa cabira qofka maxaa cabira muxuu yahay qofku shakhsiyadiisu hawiyadiisu maxay tahay amiin macluuf nin lahada jiro oo u dhashay waddanka libnaan wuxuu qoray alhuwiyaat alqaatila waa identityga qofka dila si u dilayaan wuxuu soo qaaday waddanka libnaan qofku muxuu yahay qofku waa shiico waana libnaani waa sunno waa libnaani waa masiixi waa libnaani waa waxa kale waa libnaani waddankii libnaan oo waddan yara 16 kilomitir oo isku soo wareegaya jabuuti ka weyn waddanka yara intaa leeg ee libnaan la yidhaahdo waxaa ku nool identiyo aanan ishaysan haddana waxaa laga leeyay waxaa tihiin reer lubnaan kitaabkaabuu ku qoray amiin macluuf nin la yidhahdo maxamed shanqiiti oo qatar jooga wuxuu ka qoray isagu alhuwiyaat almutakaamila identiyada isbuuxinaya aniga markaa waxaan qabaa talabaad oo fiican qofka bini aadamkii awalan waa inuu yeesho hawiyad insaaniya waa inaad noqotid qof bini aadana waxaad ka duwan tahay hawiyadii xayawaaniga ahayd halkaa waxaad ku diiday darwiin xayawaan markay mara daanyar mahin no aadan baa ka mid anugu waxaad ku diiday doorkaym ninka dhacdo oo dadka xayawaan wayaan isku yimiday waad diiday waxaad ku diiday karl marx oo dadku waa xayawaan dhaqaale anu xayawaan mahin maxaan ahay qof bini aadan ah هذه هوية وهوية
هذه لا صعية هو يدا دس محمد وإنسان لبا وحتى هاي محمد نير وحتى هاي ذكرى إما قويد ولا سكواش تحبوت ولي قف مو دوران ما لابد بو هاي مسدتك سجل لقى سويان ودورته اللي يقول مركز دورتي وحتى هاي ماشي يكون قرنا جرت ما قرنا سلبته والله ما صاحبك حكم قرن وزيرود سكس ولا جوجي جندر بالو بدلهم مدحوينها Soomaaliya marmaqlay isagoo la jandar ku diinto kamid yahay qasab bijay waradigu miro waa shay maxaa gaar wala galada waali almugta ma jandar ku diinto kamid maaha uu ka soo jeeda sex in la qorahay dakar iyo wasal ugu qoro bidiga laba aduna la batay nin batay waa huwiyad inaad ku faantida yaa ka dhigay ilaahay waa inuu khalaqa dakara wal unsa صدح وحتى مسلم وحنا هو الحضاريه الدينيه الدون كواحد اسكو هايستا سيفيليزاسيون اسكو سيفيليزيشن اسكو هايستا حضاره اسكو دريا وتحدد حضاره هذه حضاره دو اسلام باتر دينته دو اسلام فكره هو اسلام باتر خلاص هو يدا يحدد waxa u soo raacaysa qowmiyad nation Soomaali baatay Ethiopia ku dhalata ya hargeysa ku dhalata Djibouti ku dhalata ma tahay Soomaali baatay هويتيdu waa Soomaali xaga maxad ku xadiday nashik qowmiyadii ba xadiday waxa ku xiga wadaniga الهوية الوطنية dalka aad tahay baa ka sheeganaysaa ya waxaad oranaysaa maxaan ahay Maraykan dhibaato ma leh waa waddankaagii Maraykan xuquuq baad ku leedahay waajibna ku leeyahay Soomaali ma jidii baasaboorkiisii waxaana waa doortaa adna dooran karaa Soomaa okay laakiin taa kama hor imanayso huwiyaddii aad ka imatay oo asalka ahayd kama hor imanayso aniga raggan reer Faaruq markaan tababar siinayay waxay ku wareersan yihiin dadka Maraykan degan ma waddankan ka imanay baan u shaqeynaa mise halkan dadka ku nool ee Soomaalida ee ku barbursan muslimiinta ma u shaqeynaa waxaan u keenay qaacidada 70 30 badi waxay yaqaanaa tababarayaashu waxay leedahay 20 baa dhada ee waxaan u keenay 70 30 maxay 70 30 kana tahay boqolkiiba 70 haggan geli shaqadaada dadkan baa ku hor fadhiya masaakiintan Soomaalida baa ku hor fadhiya geli waa Maraykan boqolkiiba 30 meeshaad ka imatay geli markaasi maxay sameynaysaa markaa hawiyadkaasi mutakaamil ismu xileysaa iska war imanayso isma dirirayso inaad Soomaali tahay inaad Maraykan tahay war imanayso ilaa kan Maraykan boo Ireland ku yimid kan kale wuxuu ka yimid maaragtay Ingiriis ku yimid adiguna Soomaaliya ka imatay mushkilad saddexaad baa jirta annaka Soomaalida mushkiladda marba si siyaasadda uga hadli doonaa maanta ka hadlayno mushkiladda qaybista dhulka anigu waxaan qabaa in aan samayn doono insha Allah taala igana qora in aan samayn doono 30 sano ee soo socota hadduu Ilaahay dhahdo dawladda Soomaaliyeed weyn oo gees Afrika booranta annagoo iloonay barwaleena dhex yaala maxaa yeelay istaraatiijiyadda Turkiga uu wado muslimiinta ka dhaadhicinaya wax weeyaan Turkiga iyo Suuriya nimid waa mudoonaya dawladihii Turkiga ka go'ay ee Maraykan ruushku qaatay inuu la midoobo doonaya waxaa la yiri 80 milyan waddan ka yar ama 100 milyan ma samayn karaba xadaarad annaguna markii soo keenay 30 milyan man Soomaaliya oo dhan haddaan bas badina sheegayno 30 milyan man laakiin marka la googooyo geeska Afrika maaragtay qowmiyadda labaad banay oroma ku xigna oromada waa 50 milyan 6 milyan annaga ku xigna amxaarka waa ka badan amxaarka maaragtay Itoobiya dadku waxa ku meeyay Soomaaliya ka badan tirahan كان اكتيف ما كانت سوا شيء بس كده يعني ومحاوله ان تايس ان الجواب صح حتى يقرر معي بدا تغيير كان قفك هي علاقتك دحي سفرتي horta qofka bini aadanka sheekhu tabaruku bixiya beddelkay qof shakhsiya sida uu isku bedelo aba sida loo bedelo wala bashay anigu waxaan ka hadlaynaa qofka inuu isku bedelo taqyiir in qofka sameeyo qofku wuxuu ka abuuray afar aga ofrsaya qofku afar shay buu ka abuuray caalam al-afkaar waxa ku xiga caalam al-mashaa'ir
waxaa ku xiga caalam alcalaaqaat waxaa ku xiga caalam alashyaa qofku wuxuu leeyahay fikrado caalamka fikirka halkaa horta waa inuu isbedel weyn ka sameeyo shaksigu marka uu taa sameeyo waa inuu bedilo dareenadiisa maxaa dhahdaa caqliga fikirku qofka nuur buu yahay hogaaminaya dareenaduna maxay u yihiin indifaac waxa ku riixka maxay maxaa salaatuleelka u tukanaa caatifan ugu jirta jannaan doonanaa naar baan ka cabsanaynaa ilaahay baan jecel lahay waan ooyinaa salaadaan tukanaynaa waa indifaac waa caatifadii mashaacirta weyaan laakiin marka qur-aanka dhegaysanaysid caqliga haddana kacaya waa qur-aanka kula sheekaysanaya caalam alafkaar haddaa intaa bedila waxaa bedel bay caalam alcilaaqaat xiriirka dadka la leedahay haddaa bedeli weydid horumar ma gaari karaysid shaksiga batil haddaad dad salbiyiina la nooshay dad negative ah haddaad la nooshahay oo nolosha si xun u arkaya subax markaas ku yimatiin ku dhahaya sheekhaha xalay waxa dhacay waxa dhacay meeshan ilaahay wuxuu noo keenay waxba ma dhacaya adduunkana maxaan ka soo doonay maxaa wax murugo uu ka sheekeynay hadiya jeer maartay lama saaxiiba kuwaas waxaa la saaxiiba kuwa ka sheekeynaya positive-ka iyo horumarka iyo wanaagga iyo xadaarada iyo ka sheekeynaya تصدحات أفر شنو تصدق وعالم الأشياء أنكم مركز بدل سبعين عالم الأشياء قبلنا جاريا بدل الله قوليا بدل الله محن بدل الله محن كنا دركان لبسنا بدل الله مركز وين اسمه ده إلى بدل سبعين لا 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 مركز أساس يقف اسمه بدل الله بكان قال قبل ما أقول لها شيخنا شقديسي وحيسو جي تغيير كي خلوضها ورت ولي جاي الله ضدك أنا ضدك خلوضنا عايز مبدلان dadka uu dhex jooga maarata ee diida inay khalwo galayaan ay keli galaan waa problem weeyaan laakiin khalwadana weligaaba khalwo ku jirna waa qalad siduu sameeyey imaam Ghazali raximahullah markuu isbedelka sameynayay 10 sano ka baxay ummadda 10 sano wax dheer baan ahaa imika anu waxay dhahdaa 2 sano ugu filan tahay sanad marka laakiin 10 sano soo baxay wuxuu tagay Qudus uu dhuuntay waa la waayay بعد 10 سنة soo noqday imaam Ghazali oo Baghdad ku soo noqday muxuu noqday imaam Ghazali imika la yaqaan markaa buu noqday markaa buu qoray kitaabkiisa Ihyaa Ulumuddin markaa buu qoray markaa magac weyn yeeshay marka khalwo soo galay oo soo nuuray haga Soomaali tiraade marka khalwada muhiim khalwo waxa jirtay salbiya khalwada sulfiyada qaarkood wuxuu yiri ninka maxay Rumi Jalaluddin Rumi wuxuu yiri markuu nabigu cirka tagay sallallahu alayhi wasallam samadu tagay nabigu ilaahi wala kulmay subaxina soo noqday kibada wallahi anu haddaan samada tagay lama soo laameen maxaan soo laamay buu ilaahi waan gaaray meeshii baan gaaray waxa taada خلاص فردي isagoo sigaas badbaadinay moogta laakiin maxamed iqbaal mufakkirkii weynaaye maaragtay reer Pakistan wuxuu yiri nabiga waxa soo celiyay hawlba u taallay adiga bal hawlba ninka hawlu oolin muxuu soo doonay adu hawlba ku isaga hawlba nabiga u taallay hawshu uu soo laamay sallallahu alayhi wasallam marka khalwadu waa muhiim laakiin khalwadu inay dheeraatana muhiim ah yani qofku inuu 10% 15 loshiisa khalwa galwayaan muhiim jiddan wayaan 15% khalwa inuu galo haddii kale buug ma qori kartid muxaadara xitaa ma diyaarin kartid barnaamij hoos diyaarin kartid dad u dhex joogtid gooma sani لابد أن أستشهد ويان خلوض وحبك خلوض من أنت بيكون شيء سايات هاي أدرت خلوض محاكاة ما قام بتكون جنسها ولذلك ما اعتكاف اللوسمي يا طبعا كيسوس اعتكاف وحلوسمي العكوف على الداد قف إنه كل يجي له وبارة إسهلون سأشوف شو قدام بيسوحها حسين تأثير حليل الله تيهرة تيهرة الله قفهم حو دولة كو أبتر سنة ما حيتها قلت أنا واحد كجي على الدولة كو أبتر إن أمضي كو أبتر سنة دولته واسق خلافي كران Soomaaliduna waa is khilaaftay ficlan waxaana keenay duruuf baa keentay maaha wax iska yimid doon duruuf siyaasi ah keentay duruufta siyaasiga waa in la saxo si ay wax u saxsamaan laakiin dowladnimada maxaa ka culus ummadda ka culus marka al-intimaa ila al-umma anaka dowladdu waa noo weynay waqtigii saxaabada dowladdu wax weyn ma ahayn ummadda ka weynay al-umma qofku ummad ka abtirsado marka ummad aan dhisno ummaddu waxay dhisanaysaa dowladda ay rabto dhisanaysaa إنك مثلا صدق صنع شيء كسنة دولة الصومالية هي صوماليا حلنا ما لقالوا لي حلوا قال له
xaqiiqada lagama sheekeysanayo waa la dul marayaa marka haddii ummad ahaan la isku waafaqo dowladdu waxay noqonaysaa arrin yar oo fudud bay noqonaysaa insha allah jazakum allah khayran waxaan jeclaa inta aanan ka bixin inaan afar qaacido shan qaacido aan sheego bas waan dul maranayaa shan qaacido muhiima horta marka laga hadlayo taqyiirku waa sunne taqyiirku waa maxay isbedelku waa sunne ilaahay abuuray soo maaha waa low muxuu yahay waa xeer waa qaanuun macnaha marka leeyahay waa sunna waa qawaaniin kow waxaa ka ah waa sunno guud oo bini aadanka oo dhan maaha taqyiirku wax muslimiinta u gaara bini aadanka o dhan wax u yaala weyaan waa mashaakilkuna waa caam sunankuna waa maxay waa caam xalkuna waa caam noqon sunniya gaalba marka sunnuhu waa wax bini aadanka o dhan u yaala weyaan ummad dhan oo ummad ah maxaa dib u dhiga maaha wax muslimiinta u gaara maxaa horumar gaarsiiya wax muslimiinta u gaara maaha waa sunno ilaahay oo la helo markaa horumar la gaari karaya arrinta labaad waxa weeyaan isbedelku amba taqyiirku waa sunna mujtamac maaha sunnatu afraad bulshada isbedishee maaha dadka waxa isbedelaya walidaalika adduunka ilaahay muxuu ku xisaabiyaa mujtamac xisaabiyaa adduunka marka la xisaabinayo mujtamac la xisaabiyaa yaa la halaagaa adduunka mujtamac la halaagaa laakiin aakhira yaa la xisaabaa qofka وآتيه يوم القيامة فردا لكن أدونك ومحي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الله يعني أرسل هذا واحد ويانا سنه والله وتغييرك والله وبلشده اسبدشه إياه محي يا إلهي وبلشده بدلا إياه الريا بلشده اسبدشه إلهي بعد ضمبيه أوكي haddana waxaa ku jira majaalka taqyiirka ummaddu maxay bedelaysaa naftay bedelaysaa ilaahayna muxuu bedelaya waxa ummadda dul yaalu bedelaya maa bilqowm ummadduna maxay bedelaysaa maa bilnafs okay ibn khaldun raximahullah wuxuu yidhi taariikhdu waa sheeko taariikhdu maxay waa sheeko laga sheekeynayo wixii soo dhacay laakiin xaqiiqadeedu sidaa maaha buuri xaqiiqadeedu waa nadar waa fiirin iyo تحقيق ولذلك قاعدة وحي نسينا سها عقل بني آدم كهدي العطلة عقل بني آدم العطلة أو لقى شقيسين وياه وحما قاري وحكوليه هاي قفك إنه بارة مثلا كسوق مثال يعني إنه بارة وحن كدعي فلسطين وكلايا مشان يتوهم بالوضع حق دعي يدتك هدنا يدوك كتجي وياه وحي الآخرين ما تحس 15 8 oo tan oo huba ku dhacay 4 jeer oo Hiroshima sababta 4 jeer bay ka badan tahay maxay dhulka uga yaaci waayeen ay u fadhiisteen ay u dhagsan yihiin way la baaro hadii la baari waayo dadka noolahay marka labo basharka iyo manhajka in la isku xidho la iska ilaaliyaa anaga mushkiladeen waxay haysataa manhajka waxa lagu bedelayaa binaadam isku xidho hadii manhajka la raaco horumar la gaari laakiin binaadam ka fikirin binaadam oo halkan mara xaq waa in la maro waa sabab ku talana waa la dhaco aniga saddexaad waxaan taariikhda dadkeenu taariikhday weyneeyaan taqdiisu taariikh dadku waxay sugayaan salaaxadiin waxay sugayaan odayaashii taariikhda soo maray sida Cabdul waxba ka shaqeynaa taariikhda ma waxa weyn waxa weeyaan waa fikirka wax bedilaya ولذلك إلهي يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما ولا تسألون عما كانوا يعملون وضبيت wax weeyaan dadkeena qaarkood waxa weeyaan waxay weyneeyaan ay wax badan ka sugaan waxa loo yaqaano shakhsiyaadka qaarkood hadii hebel oo kala joogi lahaa saxan ma dhaceen ilaahay hadduu hebel joojinayo nabi xagga joojin lahaa nabi maxamed baa la qaaday waa la dilay waa soo calaagay sallallahu marka nolosha kuma xidhno qof wama muhammadun illa rasuulun qad khalat min qabli rasul qof kas waa soconaya laakiin waxa aan soconin waxa weeyaan waa manhajka ka wayna manhajka la barto weeyaan insha Allah waa mahadsantiin jazakum Allah khayr ma sada shakhsiyaad runtii gabagabadii waxaan soo gaarnay buuggii aynu ka hadlaynay ee ahaa isbedelka waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo فضيلة الشيخ عبد الرحمن جزاك الله خير إن شاء الله تعالى سيدو كلا ولكن إسماعيل أو إنه دوبي برنامجك إذن كان دمانتين كسوقي بقلياشة إن شاء الله
buug kale iyo mahad oo isna nala daadihinayay dhammaantiin aad sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa daawadayaasha insha allahu tacaala daawan doona kulan dambe iyo buug dambe insha allah ayaynu sugu iman doonaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu